السلام عليكم كسر دبو مقال عصب maanta muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay sida loo raaligeliyo xaasaskeena markay ka xanaaqsan tahay ama markay buuq kugu sameyso waa markii aad ka timaado shaqada ama magaalada markii aad ka imaato magaalada ha soo galin guriga adigoo xanaaqsan haddii aad qof la soo dagaashay haddii aad magaalada neerfoos ku soo noqotay waxaa loo baahan yahay markaad gurigaaga soo galaysid inaad ku soo gashid gurigaaga dhoola cadeen iyo furfurnaan markii ay ka hor imaato xaaskaaga oo careysan oo adiga kugu qayliso ha ku jawaabin hadal xun kaliya laabta geli ayadoo xanaaqsan hal marne daanka ka dhunko raali geli xataa haddii ay qaldan tahay raali geli u daji laabtaad adigu ku haysid waa sidii caruurtii oo kale wayna xariis badan yihiin dumarkeena wayna dulqaad badan yihiin wayna farxad badan yihiin markii aad adiga farxad gelisid wayna xanaaq badan yihiin markii adiga aad ka xanaajisid waxanaaqane dhankaaga aad ka qaadatid aad dhankaaga kala qaybsatid waxaan maanta muuqaalkan ugu talagalay inaad ku raali gelisid xaaskaaga mar walba laabta inaad gelisid daanka ka dhunkatid haddii ay kugu diido waxaad sameysaa lugaha ayaad ka qabsanaysaa haddii ay kaa diid laabtaada inay soo gasho waad barbaryaysaa waad isku oysiinaysaa waayo waa ubadkaaga hooyadood waa mustaqbalkaagii waa noloshaada ha ka faanin hana yasin hana moodin inay tahay shaqaalo muuqaalkan intaas ayaan ugu talagalay inaan kugu dareensiiyo adiga waayo xaaska raaligelinta waxay u tahay farxad iyo dhiirigelin waxayna dareemaysaa qalbigaaga inay boos weyn ku leedahay waana mahadsantihiin haddii aad fiidiyogan wax ka faa'iiday like share comment wix fikirkaaga ah qaybta hoose igu reeb waana mahadsan tahay walaakiin wadani baxroodin leh السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.